kalfadhigan aan caadiga ahayn oo ay yeesheen golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa shir gudoominaya afhayeenka golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Rashiid Isaaq ayna ka soo qayb galeen gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo mas'uuliyiin kale haddaba waxa uu ugu horeyntii afhayeenku hubiyey inuu buuxa kooramka kalfadhigani kadib markii uu hubiyey in kooramka uu buuxo ayaa waxa uu afhayeenku u soo bandhigay golaha ajandayaasha kalfadhigan waxaan leenahay afar ajandadood ajanda koowaad wuxuu noqonayaa ansixinta xilka madaxweyne cusub inaan madaxweyne ku-xigeen aan ansixino madaxweyne ku-xigeen hal ahna kolley wuxuu noo qabanayaa sidii madaxweyne kusimo noqoni Mr. Mustafa Maxamed Cumar ajanda koowaad uu noqonaysaa haddana inuu madaxweynuhu noo noqdo ka mid noqdo golaha federationka ajanda labaad ajanda saddexaadna xisaanaadka qaadidda 7 xubnood oo kala ah madaxweyneena hore Cabdi Maxamed Umar Deeq Abdullahi Buraale Ibrahim Sahab Marwo Rahma Mahmoud Aybe Umar Abdi Mohammed oo li yaqaan Umar Roti Abdi Jamal Colombi Ibrahim Mubarak oo meerka magaaladeena intana ka qaadayna xisaanaadka qaadidii si qof loo xabisa ma jeel soo diray kullay marxalad kullay aan ka soconay aroortaan wadadoodnay wadaashinay taasum baa kullay wax qodobka shariica qaba kullay anageynaa afaraadna kan noqoshada 99 degmo cusub iyo 22 maamul magaalo waqti dhawaan saxinay intan ajandagan kullay aan maxaan ku raaka dhigar ajanda noo noqdaan inteena taageersan soo jeedinta ajandayaashan kadib ayaa waxa ay dood dheer ka yeesheen xubnahani ajandayaashan dhammaanteen waxaan raalli ka nahay oo aan jecelnahay inay deegaankeenni nabad ahaado dadkeenni inuu nabad ahaado shalay un bay ahayd markaan halkan ku ansixinaynay een weliba ka doodaynay sida fiican aan u sharaxaynay arrinta waxa weeye maanta taagan tii shalay taagnayd ma aha shalay deegaankeennu nabad buu ahaa waxa dhacay waad ogtihiin dad baa baaba'ay hanti baa baaba'day dhibaataa dhacday deegaankii dhannaabaa waxa weeye mataqaanaa yaa qaws galay degmo markii la samaynayo economically politically iyo socially aspect waxa weeye intaaba in la eego weeye si laablakacan ku samaynay degmooyinkii waxaad ogeydeen markaynu ansixinay xildhibaanada qayb ka mid inay halkan ku dhaceen qayb inay dagaalantay idinka halkan ragga fadhiya hadda arrinta bal iska jooji degmo intii la gaaray dagaaladii degmooyinka dhacay xildhibaanada wakiilada shacabka qayb ka mid inay halkan ku dagaalameen oo uu leeyahay reerkanagi maxaa loo siin waayay reer hebel maxaa looga tagay arrintaasi waxa weeye conflict bay abuurtay waxaad ogtihiin wixii ka dhacay gobolka tusaale ahaan Shabeelle iyo gobolka Afdheer oo ka mid ah gobolladii degmooyinka ugu badan helay rashbadihii ugu badnaa haddana ka dhacay waad ogtihiin Raaso wixii ka dhacay waad ogtihiin waxa weeye mataqaanaa xarshin iyo waxa weeye mataqaanaa wixii ka dhacay shacabkeennuna in degmo la siiyey ma aaminsano ilaa hadda inay ciyaar ahayd bay aaminsan yihiin runta haddaan isu sheegno haddii 99 degmo iyo 22 magaalo hal mar la ansixin kara maxaana looga hagran jiray iyo suuqa la wada marayeen khayaali inay ahayd iyo laablakac iyo waxaan laga fiirsanin oo daraasaad la samaynin ayaa meel walba laga hadlayay waxa weeye marka mas'uuliyiinta sabab laga hadlay daraasaad baa la samayn mustaqbalka dhow meesha waxa weeye buuxisa shuruudaha degmo meesha buuxisa iyo meesha shuruudda maamul magaalo buuxisa tumuray sanadar dhay madaxweyneenina waa ka wuu maqlaa waxa weeye waa la soo qori tiiman baa la diri laakiin arrintii 99 iyo 22 maamul magaalo wax sharci ah ma ahayn laablakac bay ahayd emotionally bay ahayd wax carqalad lagu gelinayay xasiloonida iyo nabadgelyada shacabka dawlad deegaanka ayay ahayd anu waxaan leeyahay arrinta aan ansixino horta xaqiiqada in loo soo noqdo waa muhiim degmooyin maan u baahannahay mise uma baahnin waan u baahannahay berrina waan u baahnaan doonaa kuwa ka sii badanna waan u baahnaan doonaa annagu golo dhexe ahaan waan ku qiimaynay sidii hore laydinku sheegay dee haddii aan nidhaahno 99 degmo iyo 22 maamul magaalo sanadkan miisaaniyadeenni waa mushaar horumar ma aadayna ka dhigan tahay caqliga saliimkii waa inuu shaqeeyo fikirka saliimkii waa inuu shaqeeyo cid kastaa way jeceshahay
daano gobolka jarar ka soo jeeda yaa 12 degmo ahaa waan jecelahay inay intaa ka badan yeeshaan laakiin markaan aqliyan ku noqdo de waxay noqon inaan mushaar u wada xaadirno dawladdii cusbayn lacagaha aan qabanno wax horumarna aan laga shaqaynin sanadkan iyo sanadka ku xiga iyo sanadka ku sii xiga laakiin madaxweynaha cusub insha Allah degmooyin iyo gobolada intan ka badan waa laga sugi doonaa dadkuna way ka sugi doonaan si cilmiyeysan inta loo daraasaado waa la samayn doonaa kama dhigna marka xumaan iyo wax la xumaynaye ama systemkii hore wax lagu xumaynaye markii aan isku noqonnay aqliga saliimka ka shaqaysiinay eegnay dhan walba ka eegnay waxaana la qumanaatay inayna sax ahayd xaqa in la isku sheegaana ceeb maaha marka inaga lafteennu si emotionally baan ku gallay markii horeba macquul ma ahayn 10 iyo 20 waa macquul laakiin 99 degmo 22 maamul magaalo waa waxaan macquul ahayn deegaan already deegaan kala sameeyay ka dhigan tahay kal kale oo waxaan dhici karin marka yaa loo qaadanin in dawladda hore ama lagu xumaynayo ama xumaan kale ay jirto ee waxaan isqabanaynin horumarka aan rabnay inaan dadkeenii gaarsiino iyo sida aynu macquul u ahayn miisaaniyadeennu in intaasoo degmaa aan dib u gelino marka golaha sharafta leh anigu waxaan dhihi lahaa si cadiifadaha gelina wax xumaana ha eegina innaga oo ummadeenna iyo aayaheenna ka tashanayna haddana aan u danayno shacabkeenna marka waan soo dhowaynaynaa fikirkan waana taageeraynaa waad mahadsantihiin haddaba waxa ay cod buuxa ku ansixiyeen xildhibaanada ajendayaashii hor yaallay kalfadhigan oo ay ka mid ahaayeen ansixinta madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar iyadoo sidoo kale ay ansixiyeen xubinnimada golaha federeeshinka ee madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha deegaanka mudane mustafa maxamed cumar oo ay goluhu cod buuxa ku ansixiyeen waxa uu sidoo kale goluhu xasaanadda ka qaaday 7 xubnood oo kale ah madaxweynihii hore ee deegaanka cabdi maxamuud cumar deeq cabdulaahi buraale raxma maxamuud heybe ibraahim aadan mahad cabdiجمال أحمد قلومبي عمر محمود عبدي iyo إبراهيم محمود مبارك iyadoo ay goluhu cod buuxa ku ansixiyeen xasaanadka qaadida xubnahan sidoo kale waxaa ka mid ahaa ajendayaasha goluhu ansixiyey ka noqoshada 99kii degmo iyo 22kii maamul magaalo ee sida laablakaca ah hadda ka hor loo ansixiyey isla markaana kadib markii uu goluhu arkay inayna arrintan sharciga waafaqsanayn loogana gol lahaa isku dhufashada qabiilada deegaanka burburinta haykalka deganaanshaha deegaanka ayaa waxa uu goluhu cod buuxa ku ansixiyey ka noqoshada 99kii degmo iyo 22kii maamul magaalo ee gacan ku samayska ahaa haddaba golaha xildhibaanada deegaanka ayaa kalfadhigan ku ansixiyey dhammaanba ajendayaashii loo soo bandhigay